horta dheydka ummadda shacbiga reer Soomaaliland waxaan u cadeynayaa maanta dheydka ay waraaqdan soo baxday waa 1 bishii 3aad 2025 iyadoo muuqaala oo isla waraaqda oo mar dambe laga saaray waanu ka qaadnay waanu haynaa gacantan ku dhignay waa koon watan dheydka halka ka muuqdo waa idinka arkay waraaqda والله حسابه 1 bishii 3aad everything baanu haynaa wax walba waanu la soconaa كودي وطا ديتكو وكودي بشي صدحات لبادي كون إشري لواتك حالكا سري ميديك تسري يكو قرانت الريبابليك اوف سوماليلاند انترناشونال انتليجنس ايجنسي قران كاير مدوه كو هوسيه و 2025 كودي بشي صدح اوكي مادينيت waxaan weydiinayna hadaba كودي بشي صدحات ما waxa xilka hayay xukuumadii hore madaxweyne Muuse Biixi mise waxa xilka hayay xukuumadda Cabdiraxmaan Raahis taamarkaad isweydiiso waa qodob haddana markii ay ku fashilmay iyagu waxay siraahdeen xukuumadii hore ku ceebeeya oo sirdoonkii qaranka fashilaya waxay fashilin doonaan Britore macluumaadka sirta ee qarankani arkiifyada ugu jira Britore in banaanka keenaa waa maaqul wallahi billahi taala waa maaqul Britore in keenaa waxay ka dhigan yihiin ciyaal kabriid iyo gaas loo dhiibay oo dabeetana yiri aab kabriidka gaaska uu suuq dalmuhum iyo garanaya kabriidka gaas inuu qacanta ku jiro ma garanayo labada beel bul iyo guriga ku gubaaba laga yaaba marka qoladani say mucaaradnimadii mooli ma aaminsana war sirtii dalka idinka haya war ma aaminsana sabir ragan la soo qarxiyay meesha wada hayba soo wada kala duwan ilaa laba qolay u badan yihiin ragga saraakiisha la soo 760 nin oo rag iyo dumar leh oo saraakiila oo saraya gaas saraya dhexe iyo dabluhu ugu hooseeyo iyo hadii ba ku riyo 370 qof oo shaqooyin kala duwan oo agency-ga ka qaban jiray sirdoonka hadaad maqashaan maaha oo kaliya nin direes xidda sirdoonku male ku buleeyahay oo cameraman baad ka dhigaysaa Abiy Ahmed ninka cameraman-ga ugu aba loo shaqo geynaya wuxuu noqonayaa sirdoonka Soomaaliland qaabab sirdoonku shaqeeya ma diishiye kuuga xasan shaqeedada uu sameeynaya caawada waxa laga yaabaa fil Soomaaliya jooga inuu sirdoonka Soomaaliland noqdo fanaanka mashraxyada caalamka ka heesay inuu sirdoonka Soomaaliland u shaqeeyo shaqaale ka yahay waxyaalaha aynu ku gaarnay ee ku naaloonay waa nabadgelyada aynu ku haysanay waxa ay sirdoonkeena xoog lahaa sirdoonkeena shaqo badan qaban jiray sirdoonkeena meel badan ku jiri jiray sirdoon war walba dhacay nimankan way la socdeen maanta waxa nasiib daraa oo ayaan daraa ninka soo fashiliyay oo keenay oo banaanka keenay just because laba reerood bay u badnaayeen waliba reerka Subariyada la yiraahdaa anigu halka waa ka cadeynaya reerka Subariyada waa u badnaay laakiin Subariyada ragga dhaxil uma hayna qaranka xilu hay adeerayaal waxaynu fahanno haddii nacayb Subariyada dadkan lafaha iyo dhuuxa ay ka gashay reerka kale u badnaayna war hirkeen reerka kale soo raaca habar jeclo marka runta laga hadlo reerka kale soo raaca habar jeclo boqol iyo afartan ka xubnood labada haybahoodanu haynaa liisaskooda dhan baanu haynaa ragga waxa loo bartilmaamsaday haybahaan baa loo bartilmaamsaday liisma oran war raggani maxay qaranka u hayeen haybtooda ka kaalayo qaranka shaqada ay u hayeen muxuu ahaa liisma weydiin haybahaan baa bartilmaamsaday waa sirdoonkii maanta way idinka arkay liban al cadaalad la oranaya kaalay terra oo Soomaali weyn iyo balaayo u shaqeeya dalka gudihiisa ku jira sirdoonkii marka waxaad moodaa in gabi ahaanba qarankii la laalaabayo anigu sidaan u arkayo qarankii la laalaabayo tartiib anigu in meesha shaqa ka yara socoto mar baan ogaaday runta Ilaahay baa fiican ayaamihii weerarkii sida xafladda xalguleyshinta u dhacday ayaa dhalinyaro ordaysa ay soo gashay oo la sirdoonka qaranka la isqorayay halka rees positionka rees waan yaabay markaa dadkan maxaa ka sii arxiisa deewaanki wallahi fiican baan soo qabanay يا ماركيسي اللي بان على عدالو حفيز بليس كليو ريجستريجي محابيستا لا قبتاي توغتي لا قبتاي كوي دمبلياش لا قبتاي اسكرتا كشقينيسي فيلشودي لا تصوصي ما داوت تصوركا ايوا حفيز بليس كغلي ولغا ميد امك دلكا جوجتا حفيز بليس ميد غلي كرتا اورن كرتا توسا سيرفركا اد كو شقيسان ميد اورن كرتا ليان عدالا قابكا و دقمي maantana waxa la keenay sirdoonkii saraakiisha cid kale kan war xukuumaddu waa fashilu allaha naga qabto waa bedelu shacbigii u codayeen waxa leeyahay fartiina iyo codkiina eedeysaan wallahi oo qarankiina eedeen maanta oo qaabka ay u soo furfurayaan aad arkaysaan taakada loo furfurayo
kow iyo laba joogo waxaan waxa ka soo socday ku soo xiga baad arki doonteen annagu in badan baanu in badan waa idin sheegay bas ramiro sida maxay kula muuqataa way oo ku salaamay ciiso saabkiisa fiirka wad qaba haddii dhalinyarada saxab musa kacdo waxaan ku dhahdaa xas ma kacdanayaan saxab musa shaqaalaha inay u badnaadaan resources inay u badnaadaan waxa keenay sportka markii dadka kale ay ka tageen systemkii dadkii kale cidna kama saari karto waanu bid garoobay maxaan sameeyay uu sameeyay qof meel ka shaqeynayna de adigu markaad maanta ugu timaado ma oran sida ka bax qof kale ayaan maxaan ku dhahdaa keenay laakiin dadku faham kama jiro wixii okay wasaaradda maaliyadda 1200 qof ka shaqeeyo qof baa habar ayaa bara wala ma saacad masaada that is the logic oo eegay been aan hayna runa marka qofkii inuu cadhoodo maxaa diidaya wuxuu diidaya dama jiro dowladda Soomaaliya cadaalad darro lagaga tagay tanna waa cadaalad darradii qofki markaa markuu lecture-ka u akhriyo oo hada wasaaraddan message ku galaya qofkii oo hada business kana qofkii message ku galaya